kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Kismaayo Cable ku soo dhawaada qodobada warka ugu door karoon qodobada aad warka ku daawan doontaan waxa kamid ah xiisad u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo Jubbaland oo ka taagan degmada Ceelwaq ee gobolka Gada ee Soomaaliya ciidamada Itoobiya oo mas'uuliyiin caalaha iyo saraakiil ciidan ku xiray gobolka Gada ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo digniin culus soo saartay madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo $200,000 ugu deeqay gurmadka fatahaadaha iyo dambiyada uu Maxamed bin Salmaan galay intii uu talada hayay oo la soo bandhigay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka Kismaayo Cable haatan u diyaar garoobo qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan wararka naga soo gaaraya gobolka Gada ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in xiisad u dhaxaysa ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ka taagan tahay degmada Ceelwaq ee gobolkaasi xiisada ayaa timid kadib markii uu sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya labada dhinac oo maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa halkaasi iyadoona laga cabsi qabo in ay ku dagaalamaan halkaasi labada dhinac saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland ayaa isku qabtay dad taageersan dawladda kana soo horjeeda Jubbaland oo lagu xirxiray magaalada Ceelwaq ee gobolka Gada wararka ayaa sheegay in ciidanka dawladda lagu amray inay isaga baxaan halkaasi kadib markii labada dhinac ay ku heshiin waayeen arrimaha maamulka Barre Cabdisalaam Yacquub oo kamid ah saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sheegay in haatan ay ka sii darayso xaaladda isla markaana xiisada kala dhaxaysa Jubbaland loo baahan yahay in si degdeg ah looga gaaro xal si aysan u sababin gacan ka hadal sargaalkan ayaa sidoo kale ugu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay soo farageliso arrintan una soo gurmato sida uu hadalka u dhigay arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinka dambe uu jiray khilaaf u dhaxeeya dawladda Soomaaliya oo ka dhashay doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo sidoo kalena xariga ay dawladda u geysatay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdishiid Jaran oo wali ku xiran magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla wararka gobolka Gada ee Jubbaland ayaan ku guda jirnay ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah hawlgalka AMISOM ayaa lagu soo waramaya in ay xabsiga dhigeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gada iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland wararka ayaa sheegaya in cutubya ka tirsan ciidamada Itoobiya oo dhawaan gudaha u galay qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi ay xireen gudoomiyaasha Luuq Balad Xaawo Doolow iyo sidoo kale taliyaha ciidamada Jubbaland ee gobolka Gado sida aan xogta ku helnay mas'uuliyiinta iyo taliyaha ay ka haysteen ciidamada dawladda Itoobiya ayaa ka biyadiday inay la shaqeeyaan dawladda dhexe ee Soomaaliya oo uu haatan khilaaf xoog leh kala dhaxeeya dawlad goboleedka Jubbaland sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xubnaha la xiray ay shuruud ka dhigeen in la sii daayo wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Jaran kadibna ay si toos ah ula shaqeyn doonaan dawladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay madaxda sare ee Jubbaland oo ku aadan arrintaasi iyo waliba xariga lagula dhaqaaqay mas'uuliyiintaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay digniin culus oo la xiriirta fatahaado horle oo ka dhashay wabiyada Shabeelle iyo Jubba kuwaasi oo hadda saameeyay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed warka ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobab la saadaalinayo ay sababi karaan fatahaado ay sameeyaan labada wabi ee Shabeelle iyo Jubba sidoo kale qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in fatahaadahaasi ay dhici karaan labada maalin ee soo socota sidaas daraadeedna loo baahan yahay inay dadku muujiyaan fajignaan kana fogaadaan deegaanada ku dhow wabiyadaasi ugu dambeyntii waxay wasaaradda digniinteeda ku sheegtay in meelaha ugu daran ee laga yaabo in dadku ay ku dhuftaan ay kamid yihiin degmooyinka Beledweyne Baardheer Doolow gobolada Baay iyo Bakool ee koonfur galbeed ee Soomaaliya muddooyinkii dambe ayaa waxaa jiray fatahaado xoog leh oo ku dhuftay qaybo kamid ah dalka Soomaaliya sida Beledweyne oo ay haatan ka taagan tahay xaaladii ugu darnayd ee dhanka nolosha ah madasha xisbiyada qaran ee dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay $200,000 oo ah kaalmo gargaar ah oo lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed ee ay fatahaaduhu saameeyeen madasha xisbiyada qaran oo madaxdeedu ay shir jaraa'id ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay inay maalmihii la soo dhaafay ay xisbiyada madasha ku midaysan yihiin iyo waliba dad samafalayaal Soomaaliyeed ah laga soo aruuriyay lacag gaaraysa $200,000 oo qayb ka noqon doonta gurmadka fatahaadaha iyo waliba dadka ka dhacay magaalooyinka Beledweyne iyo Bardaale sidoo kale madasha ayaa waxa ay shaaciyeen liiska laba gudi oo hawlaha gurmadka ka fulin doona magaalooyinka Beledweyne iyo Bardaale الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها iyo xildhibaan fiqi baadi mahadsan yihiin iyo dhamaan xubnaha madasha iyo bahda saxaafadda runtii waa sida la idin sheegay bariyahan madasha waxay aad ugu hawlanaday inay kamera dhaliso gurmadka ay rabto inuu gaaro dadka dhibaatooyinka ka soo gaareen roobabka iyo fatahaada wabiyada ee la idin sheegay ugu badnaay labada gobol ee la idin sheegay gobolka Hiiraan iyo gobolka Bakool Baay
فلله الحمد runtii dadaalkaas dadaal miro dhalaha noqday waqtiga koobnaay iyo duruufta dalka dhaqaale ogtiina aad u yareed madasha waxa u suura gashay lacag dhan $200,000 inay soo aruuriso فلله الحمد إله كم هاتسن runtii dadkii qayb qaatay ama dadaalka ku bixiyeen aadan ugu mahad celinayna qof walba oo ka qayb qaatana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu waxa uu haystana u barakeeyo miisaanka aakhirana ilaahay u saaro dadka loo wadana ilaahay inuu ku anfaco ku deeqo yani ilaahay ka bareynaa طبعا baahida dadka lama dabooli karo Soomaalida hadaan nahay marna sida badan biyaha saana qaada marna abaaran la il daranahay taasna waxay muujinaysaa inaanan ku mashquulsanayn kor u qaadida nolosha maxaa yeelay biyuhu waa nicmo haddii laga faa'iideysto laakiin waxa isu bedelayaan nicmo waxa hadda dhaca marka insha Allah waxaan rajaynaynaa xilliyada soo socda inaan aad maskaxda ugu hayno inaan u helno xal joogto ah fatahaadaha dhaca maxaa yeelay waa wax la og yahay inay dhacaan iyo sidaas oo kale abaaraha dhaca in adduunkuba intiisa badan waa ka gaashaantay in laga gaashaanto sida madaxweyne xasan walaalkay uu sheegay dad ka tirsan madasha iyo dad aan ka tirsanayn waa ka qayb qaateen runtii dadka Soomaalida karamkooda iyo sakhinimadooda ayay marxaati ka tahay arintan inay isu gurmadaan xilliyada adag xilli kooban ayaa lacagtaas lagu soo aruuriyay xibnaha madashana waxaan rabaa aad iyo aad in anuga mahad celiyo xilliga kooban iyo siday u dadaaleen iyo sida ay ugu dhabar adeegeen hawshan kamira dhalinteeda waxayna muujinaysaa wadajirka macnaha uu sameeynaayo Dullaahi macal jamaaca waa shaqadii ugu horeysay oo madashu ay qabato markii la aasaasay kadib runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay dadaalka kooban ee la bixiyay ee miro dhalka ah lacagtaas dadkii laga soo qaadana waa ku badan tahay dadka loo wadana waa ku yar tahay laakiin ujeedadeedu waxa waa ka qayb qaadasho dhibkooda in la khafiifiyo marka targetka madasha hadda waa ilaa 500 qoys 500,000 qoys in la gaaro 5,000 qoys in la gaaro ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ay masiibadaas iska istaagto laakiin haddana mar walba dadaalkeenu kuma istaagi doona halkaas waa sii socod doona haddana waxaan ku wareejinaynaa jeegi insha Allah safarkiina waxa u baaqday sida la idin sheegay roobabkii da'ay waana taagan yahay wali labada meelba insha Allah laakiin haddana waxaan rabnaa inay gudiyada sii shaqeeyaan oo dadkii wixii la gaarsiiyay si gaarsiin aad u mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Human Rights Watch hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa mar kale waxay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ku eedeysay inuu sii xoojinayo cadaadiska iyo xariga uu kula kaco dadka siyaasad ahaan ka soo horjeeda isaga ururka caalamiga ee Human Rights Watch ayna xaruntiisu tahay Washington ayaa sheegay in Mohammed bin Salman uu qaaday wada xun oo uu ku aamusinayo dadka mucaaradka ee ka aragti duwan ururka ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in muddo ay diiwaan galiyeen marakacyo iyo muuqaalo ka hadlaya cadaadiska xoogan ee uu Mohammed bin Salman kula kaco isla markaana loo haysto waxaana xustay Human Rights Watch in inta uu talada la wareegay dhaxal sugaha boqortooyadu uu bartamihii 2017 ay luntay isla xisaabtankii mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee dalkaasi Sacuudi Carabiya ururka ayaa sidoo kale waxa uu soo saaray qormo uu ciwaan uga dhigay qiimaha culus ee isbedelka kaasi oo uga hadlay faa'iido darooyinka laga dhaxlay inuu Mohammed bin Salman la wareego talada Sacuudiga Human Rights Watch ayaa waxa kale oo ay ku dhaleeshay Mohammed bin Salman wax ay ugu yeertay dib u habeynta lagu sameeyo haweenka iyo waliba dhalinyarada midaasi oo loo arko in ay sare u kacday intii uu talada dalkaasi la wareegay ururka ayaa ugu dambeyntii wuxuu iftiimiyay in dalka Sacuudi Carabiya uusan ka jirin sharci adag balse ay sidii ay doonaan ka yeeli karaan ayna wiiqi karaan hogaamiyaasha siyaasadda ee boqortooyada dalkaasi Mohammed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa inta badan waxa lagu eedeeyaa in uu ka takhaluso cid kasta oo ka hortimaada siyaasadiisa iyadoona ay ugu dambeysay dilkii arxan darrada ahaa ee wariye Jamaal Khashoggi oo si weyn loola xiriiriyay isaga daawadayaal intaasi waxaa nooga dhan warkii Kismaayo Cable oo si toos ah idinkaga imaanayay shabakada Kismaayo Cable
kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Kismaayo Cable ku soo dhawaada qodobada warka ugu door karoon qodobada aad warka ku daawan doontaan waxa kamid ah xiisad u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo Jubbaland oo ka taagan degmada Ceelwaq ee gobolka Gado ee Soomaaliya ciidamada Itoobiya oo mas'uuliyiin caalaha iyo saraakiil ciidan ku xiray gobolka Gado ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo digniin culus soo saartay madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo $200,000 ugu deeqay gurmadka fatahaadaha iyo dambiyada uu Maxamed bin Salmaan galay intii uu talada hayay oo la soo bandhigay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka Kismaayo Cable haatan u diyaar garoobo qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan wararka laga soo gaarayo gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in xiisad u dhaxaysa ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ka taagan tahay degmada Ceelwaq ee gobolkaasi xiisada ayaa timid kadib markii uu sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya labada dhinac oo maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa halkaas